laydin sabarin in shacabka aad u turtaan ma laydin sabara gabar kastoo Soomaaliyeed inay walaashiin tihiin ma laydin sabara inaad la dagaalantaan ma laydin sabara intuusan asagu idin gaadin inaad gaadaan ma laydin sabara marka intaas weeye hadii laydin soo baray tababar idin dhima lama arko waxaan rabaa inaan idin idhaahdo aad baad u mahadsantihiin sida aad tababarka u soo qaadateen sida aad dalkiina ugu soo laabateen sida aad niyadda ugu haysaan wixii aad soo barateen inaad dalkiina iyo dadkiina ku anfacdaan waxaan rabaa inaan idin sheego ciidankii gor idin horeeyay magac buu idin sameeyay adinkuna magac ka sii qaado meel kale sii gaarsiiyo waxay idin sameeyeen shacabka u turaan inay ayagu akhlaaq leeyihiin inay dishibilin leeyihiin inay ismaqal leeyihiin inay cadowga sida uu yahay ula dagaalamaan bay idin sii diyaariyeen oo magacaasay sameeyeen magacana ma aysan keenin waxay ka keeneen tababarkii ay kala yimaadeen walaalaha iyo Turkish waxaan ku amaanaynaa sida ay noogu tababareen ciidamada sida ay mar walba noo garab taagan yihiin qiil iyo hooba Turkish inta qof Soomaaliyeed nool yahay waxaad ogaataan inaan la idin iloobayn aad baan idin soo dhawaynaynaa waa daalantiinoo safar dheer baad ka timaadiin ilaahay waxaan ka baryaynaa reerihii iyo gurihii aad ka timaadeen oo nabad qaba iyo adinkoo nabad qaba ilaahay idin geeyo oo aad nabad ugu tagtaan ilaahay baan ka baryaynaa soo dhawaada ilaahay wuxuu naga reebay aan ka harno wuxuuna farayna aan raacno taas waa dardaarankeenna koowaad waxaan ku faraxsanahay maanta ilaahay waa mahadle idinkoo nabad qaba inuu ku soo celiyey waddankiinnii tababar heer saraana wata ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed farxad weyn bay u tahay iyo shacabka Soomaaliyeedba inaad ku soo noqotaan waddankiina idinkoo nabad qaba tababar heer sare soo qaatay rajada shacabka Soomaaliyeed baad koow ka tihiin marka koowaad waxaan leeyahay soo dhawaada waddankiina ku soo dhawaada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo dhawaada dadkiinoo in jecel iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo talisyadiisa oo in jecel diyaarayni ah waxa la idinkaga baahan yahay wixii aad soo barateen iyo tababarkii aad soo barateen inaad uga faa'iidaysaan bulshada Soomaaliyeed iyo waddankiina amnigiisa xasiloonidiisa karaamadiisa xorriyadiisa inaad uga faa'iidaysaan insha Allah waan uga faa'iideyn doontaan waxa kale oo la idinkaga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan culayska ay haysta inaan ka dulqaadno waajibka saaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bay ka mid tahay idinkana waxa la idinka rajaynayaa inaad qaybtiina qaadan doontaan xorriyadda waddankan iyo in laga xoreeyo argagixisada iyo kuwa dhiigooda cabahaya idinka iyo ciidankii idinka horreeyay oo tababarkaad qabtaan oo kala qaba iyo kuwa aan nasiibka u helin intaas waajib saaran weeye waxaan rajaynaynaa inaad ku shubtaan dhiig cusub waxaan rajaynaynaa inaad kaalintiina qaadataan waxaan rajaynaynaa magac weyn iyo guul weyn inaad soo hoyin doontaan oo xagga amniga iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaad u noqon doontaan ciidanka xoogga tusaale ay ku daydaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku dirsadaan taas ayaa idin rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waxa inoo hor yaalla shaqo culus oo ay tahay inaan si wada jir isku duubni midnimo ay ku jirto karti iyo hufnaan inaan u gudano haddii ilaahay aan maalmahaas adag iyo waqtiga nabadda iyo waqtiga colaadaba aan qaadan doonno haddii ilaahay idmo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo xoogga dalku ha guulaysto ururka lixaad ha guulaysto waa mahadsantii عشان محمد عبد الواحد تليها أورك عشان يتوما هذا يكون هند كذا قرقر أمد الصوماليات بحاول شيء يا عيدك عن الأركيسان بعيدن قرب في نسوي اشتاق لها بعيدن كي شعب الصوماليات دبعته طبعا كويسان يعني يركاب دبعته طبعا كويسان ورجع كحوري لهاين ورجع قلوبته يعني إن يسوي جيتر لاسوا صابر شعبك عيدك كمان دوست أركيسي وحكوا صابرتين ودن كتركيا ولا لا ناي نعاوية
runtii oo halkaan xero tababar nooga dhisay halkaasna lagu soo tababaro ciidankaana arkaysaan waxay u dhammaystiran yihiin tababar kumaandoosa heerkii laga rabay way ka dhaafsiisan yihiin weliba 100% waxay soo qaateen tababar dhammaystiran runtii haddana waxay diyaar u yihiin inay ku adkaystaan goobaha dagaalka burumaha dhammaan meel walba waajib laga siiyo ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in ciidankaan arkaysaan waxay u diyaargaraysan yihiin burburinta cadowgooda iyo goob walba oo cadowga lagu sheego mar walba waxay diyaar u yihiin inay waddanka wax ka beddelaan xoogga dalka Soomaaliya wax ka beddelaan ma maasantiin